safar 10 kilomitir oo aanu kaga soo ambabaxnay magaalada Dhagaxbuur ee caasimadda gobolka Jarar waxaanu hadeernimi tuulada Garowa halkan dabadeeda waxa qabri marka dhaho maskaxdaada waxa ku soo dhacaya inuu qofku aasan yahay eegana waxa is weydiinaysaa qofka ku aasan ma mid kamid ah awooyaashii ummadda Soomaaliyeed ma mid kamid ah haliyeyaashii Soomaaliyeed balse intaasba ma aha waxa ku aasan hashi madida ahayd ee Garowa markaan ku dhaho halba ku aasan waxa laga yaabaa inaad is weydiinaysid ee kugu noqoto la yaab ama qiso cajiib ah waxay nooga faahfaahin doona oo inooga warbixin doona qaar kamida family-gii ama odayaashii dadkii ku aasay hashata halka kan waa tahay waxaanu joognaa xabaashi baanu joognaa maxay ahayd waxa taariikhdeeda hasha iyo qisadu sida ay u dhacday inala wadaagi doona Xamdi Cabdullaahi Cabdi oo ku magac dheer Xamdi Garowa Xamdi ku soo dhaw walaalkay aad buu mahadsan yahay hadii aan ku soo dhawaado magacayga waa sida uu soo sheegay walaalkay waxa la yiraahdaa Xamdi Cabdullaahi Cabdi waxaan ku magac dheeray Xamdi Garowo hadaan yar ku darsado waxa la igu raaciyay qabalaha magaciisa waanu hortagay 69 markii heed la soo qaxay baan gaari jaban meesha ugu imid anoo xoolo soo fuliyay reerkuna wuxuu dhinaca ka ahaa marka hadii la ka dhigo kirishbeegi baan ku waradan shaah ku kariimaad iga gadanay warniyo huma ii kariibur bal aniga bashaa maxay bari rimi baan ahaabe waan iskaga dulshatay wakaad ogtihiin oo marka caruurteenu soo karto waxa la oran jiray xabashada ka soo cararay gaadhiga guuxa xamaara la moodi jiray marka baaburtii soo qaxday oo bilaa taayra ayaa meesha taagnayd runtii saas horta magaalada aan ku dhalay ku sidaahi maayo oo ummad badan baa deemanka digto waa iyada magaalada noqotay hadaan soo noqdo hasha taariikhdeeda hashu hal cajabay ahayd xilligii horta la aasay ilaa 60meeyadii meelahaas ahayd marka hasha taariikhdeeda hadaan ku socdo waxay ahayd hashu annaga way naga horeysay laakiin taariikhda waxaan ka hayno inaan soo dhigno waan diyaarsanahay hashu hal mucjisa hal caana badan bay ahayd waxa kamid ah taariikhdeeda Soomaalidu marmar bay isir leeysay oo qabiil baa la soo waxaya intay foolatay oo xaqan iyo isaaqa ay u foolatay ayaa la yiri soo celin maayo halka ay ku dhashay mooyee raga fartanina loo diyaariyay oo la walaha afartakiin hashi markay dhashay bartay ku dhashay in lagu waardeeyay oo lagu ilaalinayo oo halka kana sax marka sidii way u soo fool halowday halka kana timid lama celinayo ninka sharahay sax marka hashi aanay waxa ku deeqday afartakiin iyo ilmaheedii markay muddo joogtay ee ilmihii isku dhaqaaqay baa la soo kixiyay sax taasoo ahayd ta kale waxa jirtay dirkeedii gabadh laga bixiyay oo maartay Soomaalida dadkeena ahayd yaradahan baa loogu geeyay yaradka waa taqaanaan markuu ninku kala hayo qaraabo yahay way gabadh jiray aqal Soomaali wax la ilaalin gali jiray aqalka marka aroortii ninku hashi gariirkeedii maqlay dirkeedu uu gariir jiray markay kacday waxa dhihi jirtay bay dhihi jirtay geel kala uu reema marka kicitaankii uu foodisa yiri reerkan aad kala bulaha waxa loo kiciyay isaga caana loogu dariyay ee ma ahayn cid kale maartay loo baakay taariikhda ninkii wuxuu yiri hashan ku hadii inuu xalay keenay dhaxantii lagu kiciyay Garowo gabadhii sidaas saaman ku furay arinta mucjisa ilaahay ka darantii hore gabadhii uu ka bixiyay laga bixiyay ee caawa reerka uu soo hidi maadaama aanan ka tagin uu kiciyay oo dhaxanba ku kiciyay dhinaca kale haduu ka fiirin lahaa isaga loogu cadeynay shaah oo la kalin lahaa Soomaali garan gabadhii saas ku furay hadii ilaahay ka dhigo wixii kale ma garanaysaa taariikhdeeda hadaan ku soo socdo hashu waxay ahayd mucjiso hadii ilaahay ka dhigo cidii aastay iyo markaan taariikhda soo raacno waxa la oran jiray odayga Shilinkaar baa la dhihi jiray waa qabaalka la dhaho reedogoodka geel wuxuu socday baa la yiri karan marka hadii ilaahay ka dhigo xilliga wuxuu yiri koladii garaba dhimantay in la aaso oo la kanfo mooyee lama cunayo lama qalayo hashi horta maxay ahayd waxaan marka hore ka soo sheegay bixitaankeedii bahalkay halka kan markay timid hasha maxaa helay sidee noqotay inta hasha waxay ahayd geel karandoonad buu ahaa karandoonad kale waxa jiray geel qani iyo wax la yiraahdo jiray markii roobku doo karantii tahay hasha marka waqti baa ku soo xaadiray hal aad loo jecel yahay maadaama ahayd oo taariikhda la soo koobi karin inaha waan iska soo gaabsanaynaa marka wuxuu ninkii hasha lahaa ilaa ka ahaa lama aasay buu hasha sidii laba qalay buu sidii xoolaha kale laakiin sidii dadkii baa loo aasay xanuunku ku yimid wuu ku xila furay walaalkii marka ayaa isaguna yiri hadaadan kafin oodan xabaal qulin anna intaas iga tahay labadoodii
marka ku xila furay marka de dhaartana waa la qiimeyn jiray bariga hore war cajab baa dhacay rag u xila furay maxaan yeelaa bali waxa weeye marka waxa la soo qaaday laba kabdood kabad waa taqaanaa aan manay waa waxa la sameeyay hadiya dhaqanka ee xariirta la yiraahdo marka kale laga sameeyo suufka dumarku si taagan soo ma garanaysa waxa weeye marka labada kabdood baa la isku talay hashi waa lagu kanfay sidaas hashi macnaha xabaasheedu ay dhaqan ku dhaqan ma la dhaqay hashi waa ku meeyay hashi waxa weeyaan kulli waqti horta biyaha biskilid horumarintan caalamkan waxaan ma jirin waa la kafay gaadina muusan jirin taariikh ajaayib leh noqotay marka cid kasta oo hashaas arinteeda u timaada waxaan anagu ku buurinaa horta bal inay sida taalada sayidka oo kale inay hashi iyo nirigtii ay u sameeyaan maadaama oo ilaa qurba joog ilaa dad munaybas ka yimid meel dad ka yimid mar walba inay isku deeyeen xilaa xukuumadii hore iyadoo hadaleysa ay maartay yaa magaraysa ayuu waqti ka soo gaaray qurba joogta iyo dawladda waxaan faraynaa ina taaleedii maadaama ay dhaqan gashay xilli waxa tii caalamka adduunka kale ingiriisku sac aan aasayna sac soo u socdaa sida garwo kale marka waxa la iska joog qolo Soomaaliyeed kaaga horeysay ma galisid oo wax aastay ma galisid taariikhdi taas ingiriisku gacmuhu la laabtay bay ahayd sida daraadeed geelu dehdii dhaqan bayno sida daraadeed aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa qoladiina media noo keentay laakiin fariin waxaad naga gaarsiinaysaa cid kasta oo Soomaali meel joogtaba hidiya dhaqanka in la muujiyo si taalada sayidka oo kale oo hal iyo nirigtii adii carwo in laga dhigaan codsanina taariikhda waxa ku jirta hadda waad ogtihiin oo hidiya dhaqan baa leenahay caanaha geela aad baa loo yusgareeyaa geedkan waxa kamid yahay geedaha hash daaqi jirtay ee gaarka ah ee geeru maartay xilliga abaarto kale ama dhulku daaq ka dhamaado uu soo haraa magaciisana qalanqad baa leeyahay sidoo kale isagii mayaagiyo haddaan yar ku soo laabto waxa weeye hasha mucjisay ahayd meesha horta garawleey caaniga lagama waayo mar walba oo marto ama kuwa dhanaan oo fustooyin lagu dhibaat ka helaysaa ama kuwa dhawa free show la soo lisay hadda inta ay BBR-ku soo gaaray ee laamidu timid ee baabuurta yar ee barbogasta la soo kaxaystay iyo rabbi ku sameeyay ogolaa ay suusiyadan gaariga qabdaha ka imaw nala soo hadlay si diyaar u dhih mas'uuliyiinta iyo madaxdu marka ay imanayaan gobolka Jarad waxa la soo diyaariyaa hool dhan oo caana geela yaa la soo diyaariyaa xaqiiqo weeyaan waxana laga qaadaa tuuladan garow sida daraadeed in horta hashal cajabeed haysaa soo garanaysaa hidiya dhaqankaagana lagama tagay hees baa waxay ahaan jirtay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo tidid haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana laba huraanay hagarlii wuxuu qabo hooy hantiyay macaan waa midaan hooy laga oranay heleeyoy hidiya dhaqan ahaan baa loo soo qaadanaya dadku qaarkiin gobolka Jarar wuxuu aan ku yahay oo u gaar ah mustawqiyaha waxa ku sawirnaa markii hore hal iyo nirig oo ah maxay haytay looga jeedo hashi garoowe iyo nirigteedii waa gobolka Jarar bay u gaartay haddana waa la bedelay oo waxa lagu bedelay laba buurood oo isaga mid ka yihiin magaalada Hargeysa oo la dhaho Naasa Hablood buu leeyahay gobolka Jarar taasoo maxay tahay labada buurood ee ku yaala magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar lagu xardhay oo ay ku yaaliin xagga dambe backgroundka dambe ee mustawqiyaha gaar ahaan ninka beerta ay ku dhaxtaalale si gaar u dhaqaalaya Xasan Shacali baa leeyahay garabkii uu taagan yahay irfida dhinac uu ka mariyaa waxa soo dhiray isaga u beeray uu ku ilaalinaya beertan baan leeyahay beertan ayaan iska leeyahay oo aabay ka soo gaaray sax oo ka dhaxashay marka meeshana meesha baan ugu nimid oo ahaan jirtay marka markii la igu yiraahdo garawaa lagu aasay waan dhaqaalayaa sidoo kale aan dhaqaalayaa sidii xawaalihii bini'aadanka oo kale ayaan u xurmaynaa oo dhaqaalaynaa marka waan irfida waan ka duwaa iyo maanta meelaha qodaalka ah meelo badan iyo dad fara badan ugu yimaadaa kan nimid magaalada Dhagaxbuur waxaan ma soo safarnay tuulada Garow maadaama meesha ku aasan tahay hal taariikhi ah aan hadda ka raxbaan ka ogeyn marka waxaan soo safaray Martin aan ogaano taariikhdeedii iyo Martin qaabkaygu sidoo yahay qabriga aan soo aragno marka aad bad mahadsantiin magacaygu waa Cabdiraxiin Nuur Ismaaciil waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaanu socdaal yaro gaaban aan ku nimid tuulada Garow si aan u aragno ama aan warbixin buuxda aan uga helno hashi ku aasan Garow waxaanu ogaanay macluumaadyo badan oo ku saabsan marka aad ayaan ugu faraxsanahay safarkan soo galnay iyo booqashada aan ku nimid xagan waxaan maanta joognaa magaalada Garow waxaan ka soo baxnay magaalada Dhagaxbuur Garowna hadda waan joognaa si aan u helo hashi taariikhi ah si aan u helo
macnaha taariikhdeedii ugu agii hore ka da'yarayn si dhammaystiran si aan u helo haddana waan joognaa wayna noo dhammaystiran tahay waanu helnay waxaanu nimi magaaladii taariikhiga ahayd ee garowe dhinacayga garabkayga bidix waxaa taagan mid ka mid ah odayaasha guurtida magaalada tuulada garowe oo ahaa aas-aasihii ugu horreeyey ee tuulada garowe waxaan rabnaa inuu nala wadaago taariikhda ay leedahay tuulada garowe adeer ku soo dhow magacaaga adoo ku bilaaba axmed cabdi cumar baa la yidhaah waa sax waxaad bal maxay tahay nala wadaagtaa taariikhda magaalada tuulada garowe magaalada 70 iyo 1970 iyo 4 baa la degay sax yaani soo degnay sax dhagax buur iyo bulaale cidi uma dhaxaynin oo magaaladan ahayn haye uma dhaxaynin maxaa markii ugu horeysay maxaad ku bilowday waxaan ku bilaabay maqaayad geed galoole hoosti haye aad ku yimi jirtay yaan ku yimi shaaha ka gashay dadka iyo dadka safarka iyo geelshiraha wadadii geelaatana haye yaan ku gadi jiray haye kolka halkaas ka bilaabmay haye goorma dadkii soo degdegeen oo soo baharkeysmeen dadkii kolku ilaa 2 sano kadib uu dadku soo biiray sax halkaas ku soo biiray waan gartay shabahada markaa soo galay wadanka waan gartay magaca garowe maxaa ugu bixiseen meesha garowe waxa loogu bixiyay hal garowe la yiraahdo baa lagu aasay sax oo magaaladan haye halkaas ay xabaasheedu ku aasantahay sax hashaas loogu magacaabay sida nalagu yiraahdo anagu ma aanan goobjoog ka ahayn way naga horeysay anaga sax hashaas loogu magacaabay xabaasheedu waa taas wata halkaas ay tahay aad iyo aad lagu maraa aad iyo aad garowe ku magac dheertaan waa hashi garowe ahay waa tahay intaas waxaa inoogu eeg taariikhdii koobnayd iyo warbixintii idin daadihinaya isugu sikii dubriday anigoo ficil burkuud dhiidhiya waxaana nagala daawanaysaan waa warbaahinta Daljir tan iyo barnaamij la mid ah ku kulmi doon